بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضا قيمة بن آدي مسلامية إن شاء الله عشر كين وحنوس السعودي مركا إبديمولوجي كورس كين ونوس السعودي ما أنتم حين قادم دونا جبتر كي صدحات جبتر كي صدحات حكو سابسين هاي level of preventions jabtarkan saddexaad maanta wuxuu ka hadli doonaa heerarka xanuunka looga hortago xanuuno marka ay dillaacaan ama xanuuno ay sidooda xanuun marka uu jiro qaabka looga hortagi karayo ka hortagga waa waxa ka wanaagsan waxa la yiraahdaa marka ay daweynta ka hortagga waxa ugu qiimaha badan uu la sameyn karayo marka ka hortaggaas waxaa loo qaybiyaa saddex ka mid ah primary prevention ka hortagga koowaad secondary prevention ka hortagga labaad iyo tertiary prevention ka hortagga saddexaad inkastoo dunida ay isticmaasho hadda wax loo yaqaan primordial prevention oo primary ka sii horeeya dunida hadda waxay isticmaashaa primordial preventionist ayay isticmaalaan si kastaba ha ahaato waxaan ka hadli doonaa markaa ka hortagyadaasi iyo qaababka mid walba xilliga la isticmaalayo siday ku kala wanaagsan yihiin iyo mid walba waxyaalaha la qaban karayo sidoo marka inta badan xanuun marka intuusan dhicin ka hortag ayaa la isticmaalaa marka uu dhacana qofka waxaa la sameeyaa marka iyada ka hortag kaasoo noqonay in goor hore qofka xanuunka la garto oo la daweeyo marka early diagnosis and marka wax loo yaqaano treatment marka early diagnosis and early treatment haddii qofka daweyntaasi goor hore la isticmaalo goor hore qofka xanuunka la garan waayo oo la daweyn waayo haddana waxaa loo isticmaala wax loo yaqaano tertiary prevention kaasoo qofkii xanuunkii waxyeelada u geystay kadib ay u baahan inuu sameeyo marka rehabilitation bal inta soo hadhay in la tababaro bal si uu qofka marka iyada inta ugu shaqeysan karaya marka intayna marka preventionist ay gelin ka hortag intayna gelin waxay u baahan marka inay fahno marka xanuunki natural history of disease kana eegno stageska oo xanuunka uu maro marka stageda xanuunka aan aragno marka waxa loo yaqaan asymptomatic stage ama presymptomatic qofka waxa weeye mar horta susceptibility ka koowaad qofka xanuunka mar uu nugli ka labaad waa xanuunka qofka jeermiska jirkiisa xanuunka qofka uu soo galay laakiin wali calaamado iyo cabasho toona ma laha oo waxa uu naqaan presymptomatic ama waxa loo yaqaan asymptomatic mar waxa jirto waxa loo yaqaan symptomatic oo qofka uu yahay marka iyada qaab noocaas u daraasanad doonaa marka xanuunka aan fahanay stageskiisa kadib waxaan ku abala garan doonaa ama u adeegsan doonaa markaasi inay isticmaalaan marka ka hortagyadaas insha Allah cashirkan wuxuu lahaan doonaa markaynu dhammayno laba qaybood baan kala jebin doonaa qayb aynu markaa maalinta dambe ka dhigan doono maadaama uu 60 slide ka kooban yahay laakiin waxa ku guda jiro waxa loo yaqaano assignmentiga qof kasta oo ka soo shaqeeya waxaan isku dayi doonaa si aan loo cabanin xagga ugu dambeeya ayaa assignment kugu qori doona qofka markuu akhrisanayo laakiin waan groupkan soo dhigi doonaa assignmentigaas iyo shuruudihiisa waxyaalihiisa learning objectives marka hadafka laga leeyahay ama in u baranayno hadaba maxay tahay marka cutubkani ama chapterkan at the end of this unit markaan dhameeyno cutubkani ama chapterkani the student is expected the student marka ardayga is expected to maxay marka maxay ka rajeynayna waxyaalaha laga rajeynaya ardayga waxa weeye divine the natural history of disease inuu qeexi karayo heerka ama meertada uu xanuunka u maro yani natural history of disease waxa la yiraahdaa qofka xanuunka marka uu soo galo ilaa iyo in muddo dheer haddaan qofka wax dawo la seenin xanuunka qofka sida ugu sii korayo ama u sii hormaray ama wax u yeelanay it is different stages ee marxaladaha kala duwan ee marka xanuunka describe waxa qofka ugu baahan inuu sharaxo the levels of disease prevention ka hortaga heerarka ka hortaga ee xagga xanuunada markan ka hadlanka levels marka waxa jira heerar of disease xanuunka prevention lagu hortagi karayo marka heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad marka qofka inuu garan karayo okay natural history of disease refers waxaan ka tixraacnaa to the progression koritaanka ama horumarka of disease process habka uu xanuunku uu qofka ugu fiday ama ugu korayo in an individual shakhsiga over time marka muddo dheer waqti in the absence of intervention inagu wax faragelin aan sameynin meelaha qaar waxaa jirta dunida dalalka qaar waxaa jirto qofka markuu xanuunka uu yiraahdo noloshan ka dhargi waxyaalo noocaas oo kale
in wax la sameeyo kaleeto qaarkood ay lacag ku qaataan xanuunka lagu tijaabiyo iyadoo loo eegayo marxaladaha markaa bal xanuunka marbahalka wax looga qaban karaya iyo waxyaalaha noocaas ayaa jirta. There are 4 stages in the natural history of disease. waxaa jira 4 marxaladood ayuu xanuunka u maraa. Kow, stage of susceptibility, marxalad oo qofka xanuunka u nuguli, yacni xanuunkii qofkii ma qabo laakiin wuu u nuguli. waa caruur yaryar oo xanuunkii measleska jadeeco kaleetaa dilaacday ama waxaa la yidhaha polio kaleetaa dilaacday, talaalna ma qabaan. caruurtaas kaleeto waxaa stage of susceptibility, marxalad waxay ku jira u nuguliin ama ilmihi yar waa nafaqa darro ayaa haysa. Okay, marxaladda labaad waxaan u naqaanaa stage of pre-symptomatic, waa marxalad ka horeysa calaamadihii jeermiska qofka jirkiisa wuu soo galay laakiin wax calaamada ma laha. waa subclinical ayaan nidhahnaa ama asymptomatic, qofka wax calaamada ma leh. stageka saddexaad waxaan u naqaanaa stage of clinical disease, waa marxalad qofka xanuunkii calaamadihii iyo cabashadii uu qofka uu leeyahay, qofku kuu cabanaya symptomski wuu dareemaya wuu kuu cabanaya markaas subject iyo signeski iyo calaamadihii qofka xanuunka lagu garanayay wuu leeyahay. stage of disability or death, waa marxalad qofka xanuunka uu ku keenay curyaannimo disability or death ama dhimasho. marka xanuun afartaas marxaladood buu maraa. mar qofkii wuu u nuguli, marna waxaa weeye qofkii jeermiskii wuu soo galay ama xanuunkii qofka wuu soo galay laakiin wax calaamada ma laha. hadda calaamadihii cabashada uu leeyahay, xanuunka qofka wuxuu u keensaday curyaannimo ama dhimasho. stage of susceptibility, marxaladan qofka u nuglaanshiya xanuunka u nugulih. in this stage marxaladani disease xanuunka has not yet developed, xanuunkii qofka weli kuma uusan dhicin. xanuunka waa maxay? weli qofka kuma uusan dhicin ama ma uusan u qaadin. but the groundwork has been laid, laakiin wixii xanuunka keeni lahaa wuu jiraa by the presence of factors that favor its occurrence. waxyaalihii ama marxaladii waxyaalihii xanuunka qofka u keeni lahaa ama ugu dhici lahaa waxa weeye way jiraan. Okay, unvaccinated child is susceptible to measles. ilmihii aan tallaalnayn wuxuu u nugul yahay in uu qaado jadeecada. marka marxaladani qofka xanuunka kuma dhicin laakiin si wixii xanuunka keeni lahaa waxaa laga helayaa environmentiga wuu joogaa marka ayada waxaa la jecel yahay marka waxyaalihii factorka ama shayga xanuunka keeni lahaa waxaa aad loo jecel yahay inuu qofkii markaasi uu deegaankii uu joogo marka viruska measles kaleeto ama polio waxaa weeye environmentiga waa laga helayaa carruur iyo waxyaalo kaleeto ku dhacday laakiin qofkan weli ma isa soo gaarin wuu u nuguli maadaama talaalka uusan qabin. ilmo kasta oo jadeeca marka ayada hadday dilaacdo aan talaalnayn waxaa oranaynaa wuxuu ku jira stage of susceptibility, marxalada qofka u nuguli. stageka labaad waxaan u naqaanaa pre-symptomatic. waa maxay? waa ka hore symptomatic, intaysan calaamadaha soo bixin ka hore. waa marxaladii uu qofka ama asymptomatic baan u naqaanaa wax calaamadaha qofka kama laho ama subclinical ayaan u naqaanaa. in this stage there are no manifestations, qofka ma laha wax manifestations, signs and symptoms of disease, calaamadihii ama cabashada xanuunka lagu garanayo qofka ma laha. but pathological changes, laakiin waxaa jira isbedel xanuun ah, damage marka dhaawac baa jiro. unugii ama seelkii ama jirkii waxaa soo gaaray dhaawac. have started to occur in the body, qofka waxaa ku dhacay ama ku bilowday isbedel inuu jirka ku yimaado, isbedel xanuun marka dhaawac soo gaaray. and the disease can only be detected, marxaladaas xanuunka qofka waxaa lagu ogaan karayaa through special test, anagoo baaritaano qaas ay samayno. since the signs and symptoms of disease are not present, inkastoo markaasi qofka uu lahayn signs markaa calaamadihii and symptoms cabashada of the disease xanuunka are not present, maadaama qofka ka muuqanin ama uusan lahayn calaamadihii cabashadii waxa weeye waxaa lagu ogaan karaa shaybaaro qaas. tusaale ahaan marxaladan waxaa u naqaanaa waxaa lagu ogaan karaa screening. qof baa dhiig shubis oranaya, qofkaas wuxuu isku arkaa inuu caafimaad uu qabo, kadib markuu dhiigga uu shubo waxaan ku oranaynaa waxaad qabtaa xanuunkaas. qofka iskuma ogeyn laakiin wuu qarsoonaa. examples: detection of antibodies against HIV, detection inaan helna markaas antibodieskii antibodiyada markaa laga samaystay ama lidka ku ah HIV-ga in apparently healthy person, qof u muuqda inuu caafimaad uu qabo. qof baa dhiig ka shubisniri kadibna waxaan soo qaadnay
waxa loo yaqaano serology kadibna waxaan eegnay rapid testigeera waxaan ku dhibcinaa markaasi waxa loo yaqaano antibodies kadibna waxaan aragnay qofkii inuu HIV uu qabo marka qof screen loo sameeyay or an over marka ogxaan ama eggs of intestinal parasite mindhicirada marka iyada waxa parasiteska ama gooryaanada ku dhaca mindhicirada in the stool of the apparently healthy children ilma gooryaanada inta badan ku dhaca marka mindhicirada ayaan waxaan ka qaadnay ilma yar baan saxaro ka qaadnay kadibna waxaan ku aragnay marka eggs kan ku aragnay marka strangulosis ka kaleeto waxaan ku aragnay B1 ki kaleeto ama trichoris ka kaleeto waxyaalihi noocaas oo la midka marka gooryaanada the presymptomatic or subclinical stage may lead to clinical haddii uu qofka aan wax daaweyn ama waxba la siin ama goor hore la ogaanin marxaladda qofka uu ku jiro wuxuu u gudbi karaa wuxuu kugu hogaamin kartaa in uu gudbo marxaladii ah qofka in calaamadii cabashada ka soo baxaan and may sometimes end in recovery xilliyada qaar waxaa laga yaabaa qofku iska bogsado without development of any signs and symptoms idoo wax calaamado wax cabasho ay ka soo bixin qofka inuu iska bogsado maalin walba waxaa laga inta soo xanuun ayna jirkeena soo galaan uu difaacina meesha ka saaro uu qofka iska bogsada markaa hadduu bogsan waayna qofka wuxuu geli karaa marxaladda loo yaqaano clinical stage the clinical stage at this stage marka marxaladdan the person qofka has developed waxa qofka uu qaaday ama ka soo shaacbaxay signs and symptoms markaas cabashadii iyo calaamadihii of the disease xanuunkii the clinical stage of different disease the clinical stage marxaladdan marka cabashadii calaamadaha of different disease xanuunada kala duwan differs waxay ku kala duwan yihiin in duration xagga muddada severity qatarta and outcome iyo waxyaalaha ka soo baxaya marka natiijada markaan aragno different disease xanuuno kala duwan sida waxa loo yaqaan common cold oo kale ama waxa loo yaqaan marka flu oo kale ama durayga iyo TB hada qaaxada iyo hargabka oo kale waxa waa different disease xanuuno kala duwan marka xanuunadan kala duwan device waxay ku kala duwan yihiin marka TB-da iyo flu-ga marka iyada waxa loo yaqaan durayga ama qaaxada device waxay ku kala duwan yihiin duration-ka muddada waxa laga yaabaa durayga ama hargabka waxa uu naqaan muddo yar inuu ku hayo laakiin qaaxada duration-ka inay ku hayso muddo dheer 2 bilood 3 bilood 4 bilood okay xagga severity qatarta waxa laga yaabaa durayga markii inay ka bogsato laakiin TB-da marka TB-da ama qaaxada oo kale sida waliba tasambaboodka oo kale inay severity-ga qofka halis ay sii noqoto outcome waxa ka iman kara qofku inuu iska bogsado outcome kan waxa laga yaabaa qaaxada qofka inuu u dhinto oo kale marka the outcomes marka resultiga ama natiijada of this stage marxaladan maybe waxay ku dhamaan kartaa recovery waxay noqon kartaa marka qofku inuu iska bogsado disability inuu curyaamo ama death inuu dhinto marka xanuun saddexda ama ku dhameeyo qofku inuu ka bogsado inuu curyaamiyo iyo inuu dhinto tusaale in soo qaadana common cold ama marka waxa loo yaqaan hargabka ama durayga hasa shot waqtigu iska gaabiyay 2 cisho 3 cisho laga yaabo qofku inuu iska qofaco mild clinical stage calaamadihiisa aad iskaga fududeen waa duuf yar cabur yar qofac yar iyo raxmadan qofku soo and almost everyone recovers quickly gabi ahaanba qof kasta waxaan rajaynaynaa inuu ka bogsado in waa maxay oo ka bogsado marka si degdeg ah recovers inuu qofka ka bogsado kuwi kale si degdeg qof ba hergab u dhashay hadii qofka tiisa aysan gelin hergabka maalin walba wax hergab yar baahay qofka iska yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa qof inuu hergab u dhimanayo inta badan kama filayna marka polio hadii soo qaadana dabaysha cudurka dabaysha hasa severe clinical stages calaamadihiisa hadii jeer waxa weeye kuwa aad qatar u ah kuwa waa maxay aad qatar u ah and many patients bukayaal fara badan develop waxay qaadi karaan paralyze inuu qofkii uu markaa iyada uu paralyze uu noqdo inuu markaa iyada u curyaamo oo muruq markaa awood weakness ay ku timaado and becoming markuu daciif noqdo markuu paralyze uu weakening muscles markuu daciifo awood uu noqdo becoming wuxuu noqonayaa disabled inuu curyaamo for the rest of their lives waqti marka intuu qofka noloshiisa ka dhimanba inuu curyaamo ku nool 6 bilood hadii qofka uu gaaro oo markaas uu soo kaban waayo waxaan rajaynaynaa wax loo yaqaan qofka disabled uu noqonayo laakiin wixii 6 bilood ka soo yar insha Allah waxay ku arki doonaa marka meel kale aynu ku arki doonaa rabies has a relatively cudurka rabiada has relatively waxa la xiriiriyaa short waqtigiisu iska gaabiyay rabiada marka but severe clinical stage laakiin marxalad aad bay khatar u yihiin and almost always result in death hadii jir wuxuu keeni karaa dhimasho
rabies markuu bisadaha ee qofkii qani ama eedo kaleeto ayaa waxa waa virus oo viral disease kaasoo waxyeeleeya ama ku dhaca central nervous system-ka markaa wuxuu keeni karaa muddo yar oo kooban qofka in uu markaa shock ku galo kadibna uu qofkii markaa uu waxyeelooyin fara badan u galo organ damage fara badan ku dhaco qofkana dhimasho uu keeno markaa multi organ damage buu keeni karaa okay diabetic mellitus haddaan ka hadalno macaanka oo kaleeto has a relatively long clinical stage isaga waxaa la xiraa muddo dheer qofka inay calaamadihiisi ay kusoo shaac baxayaan and eventually isla markiiba result in death wuxuu keeni karaa ugu dambeyntii result wuxuu keeni karaa death if the patient is not properly treated marka macaanka kale waxaa laga muddo dheer qofka inuu la jiitamo muddada dheer qofka la jiitamaya haddii uu kontaroolo dawadii uu qaato is dhowro waxay keeni kartaa inuu la xanuunka la noolaado laakiin qofka haddii dawadii uu gooyo ama waxa loo yaqaano uusan isdaryeelin waxyaalihii oo dhan iska joojin waxay keeni kartaa marka kaliyaha indhaha meelo fara badan autonomic nervous system-ka meelo fara badan in waxyeeleeyo taasna waxaa ugu dambeynta qofka ay ku sababi kartaa markaa dhimasho marxaladda afraad ee marka xanuunada aan ka hadlayno waxaa loo yaqaana stage of disability or death marxalad waxaa weeye qofka xanuunka ku dambeyn kara dhimasho ama waxaa loo yaqaano curyaannimo disability qofka inuu curyaannimo ama death dhimasho some disease xanuunada qaarkood run their course muddadooda waxay socon karayaan ama qaadan karayaan muddo dheer bay qaadan karayaan and then resolve completely waxaa laga yaabaa gebi ahaanba qofka inuu iska bogsado ayda bogsashadaas waxay noqon kartaa spontaneously isaga wax daawo qaadan qofka iska bogsada or by treatment ama qofka daawo haddii la siiyey inuu bogsado in others marka kuwa kaleeto marka xanuunada kaleeto may result in waxay keeni kartaa residual defect in waxyeelo inuu qofka ku reebo residual qofka wuxuu kaga tegi karayaa ku reebi karayaa defect waxyeelo markaas a living the person qofka wuxuu kaga tegi kartaa disabled inuu ciidaamo for a short muddo yar or long duration ama waqti dheer still weli other disease will end in death xanuunada qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku dhamaato dhimasho disability haddaan qeexno waxaa weeye is limitation waxaa qofka ka xanimay of person's activities qofka shaqooyinka uu qabsan lahaa ayaa ka xanimay yacni noloshiisa waxyaalaha qofka uu qabsan lahaa ayaa waxaa kaga dhacay markaa ma awoodi karaya including waxaa ka mid his role of parent roolkii ama doorkii uu ka ciyaari lahaa waalidnimo work honor ama qofka lacagtii uu shaqaysanayay oo kaleeto qofka hadduu curyaamo oo kaleeto waxaa laga yaabaa shaqada inuu shaqaysan kari waayo inkastoo haddii dalalka qaar ay sameyn lahayn dadka curyaamiinta oo kaleeto xawaaladaha ay meelo qaar waxaa jirto ay gacmaha waxaas laga shaqeeya maskax kali u baahnaa activity aan u baahnayn okay trachoma may cause blindness trachomada waxay keeni kartaa qofka inay indho la-aan keento sababta trachomada waxay keenaysaa wax loo yaqaan indhihii in dryness ay noqdaan horta marka hore discharge bay la marka dambe qofka dryness bay noqonayaan markii qofka inay marka indhihii waxa loo yaqaan ay qalalaan kadib waxa loo yaqaan qofka inuu xoob uu saarmo kadibna waxaas xoobkaas wuxuu keeni karaa waxa loo yaqaan inuu qofka indho beelo meningitis inuu qofka uu keeno wax loo yaqaan qoorgooyaha oo kale xanuunkan qoorgooyaha naqaana may result in wuxuu keeni karaa meningitis ciyaalka marka ku dhaca carruurta oo kaleeto wuxuu ku keenaa wax loo yaqaan indho la-aan ama dhego la-aan result qofka haddaad aragtid ciyaarnimadiisa oo kaleeto haddii wuxuu ku dhashay lagu eliraa caadi buu ahaa waxyaalaha ku keeni kara inta badan waxaa weeye indho la-aan ama dhego la-aan waxa ku keeni karayo inta meningitiska may also resulting wuxuu keeni karaya dhimasho okay schematic diagram of natural history of disease and their expected outcomes haddaan sawirkan eegno uu meertada xanuunkan uu marayo oo kaleeto iyo waxyaalaha inta badan encouraging inay kasoo baxaan health person qofku uu caafimaad qabaa qofka markuu caafimaadka qabo xanuunkii oo kaleeto soo galay jirkiisa subclinical disease qofka xanuunka uu soo galay xilligan oo kale screen hadday u sameyno unbay ku ogaan karnaa wax loo yaqaano inuu xanuunka u qabo qofkan subclinicalka wuxuu rajo u haystaa laba nooc inuu iska bogsado saan hore usoo sheegnay isan wax ama inuu marxaladan calaamadihii sign symptomka xanuunka uu kasoo baxo sign symptomka xanuunka hadduu qofka uu kasoo baxo calaamadihii cabashada kasoo baxdo wuxuu ku dambeyn karaa saddex mid inuu ka bogsado inuu u curyaamo iyo inuu u dhinto marka xanuun waa qaabka ku dhaca okay haddaba maadaama soo fahanay marxaladaha kala duwan ee xanuunka uu maro haddaba maxaynu u baahanay waxaan soo gelaynaa marka prevention ka hortagi level of disease prevention heerarka kala duwan
marka waxa loo yaqaan ka hortagga xanuunada. The major purpose in investigating ulajeedada ugu weyn the major purpose hadafka ugu weyn ama ulajeedada ugu weyn in investigating the epidemiology of disease in u baarayno in baaritaanka u sameynayno xanuunada bulshada ku dhex jira waxaa weeye is to learn inaan barano how to prevent habka lagaga hortago and control them oo loo xakameeyo xanuunada bulshada ku dhex jira. waxyaalaha inta badan aan u baarayno waxaa weeye hadafka ugu weyn ay ku leenahay inaynu ogaano habka sida looga hortagi karayo xanuun ama haddii uu dilaaco loo xakameyn karayo. Disease preventions ka hortagga xanuunka means waxaa weeye to interrupt inay faragelino or waxa loo yaqaan slow ama aynu yarayno the progression of disease xanuunka koritaankiisa. markaa xanuunka fiditaanka ama horumarka uu sameynaya inaynu halkaa ku faragelino ku joojino. haddii aynu joojin karaynin inaynu hoos u dhigno oon yarayno. markaa inaynu hoos u dhigno oon yarayno. mid ka mid ah coronavirus ka waxyaalaan ku yaraynayn waxaan ka mid ah in leenahay waxa weeye distancing labada qof ha kala fogaadaan ama marka in leen waxa loo yaqaano qofkii hand washing ha sameeyo qofkii qufacaas waxa marka iyada gacantiisii ama tuush ama waxyaalo nooca ha adeegsado waxaan leenahay waxaan doonaynaa hab in ku joojin karno haddii uu xanuunkii inuusan gudbin ama lagu yareyn karo. Epidemiology-ga place wuxuu ka ciyaaraa central role markaas door udub dhexaad oo ah in the disease prevention habka xanuunka ka hortagga. markaan sheegana habka xanuunka looga hortagay ka hortagga xanuunka epidemiology wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah marka ama udub dhexaad ayuu ka ciyaaraa by identifying inaga ogaanayno those modifiable cause waxyaalaha xanuunada keena in wax ka bedeli karna xanuun causes disease xanuunada waxyaalaha sababa u qayna modifiable wax changeable wax laga bedeli karayo wax xanuunkan wax laga bedeli karayo iyo wax loo yaqaan non modifiable waxaan wax laga bedeli karin. waxyaalaha wax laga bedeli karayo waxaa ka mid ah marka ayade qofkii hadda ka wasoo qaad waxyaalihii wax loo yaqaan macaan baa sababay oo kale sonkorti qofka sonkorta iska yareeman kara milix waxyaalihii qofka milix iska yareeman ku oran karna miisaanki qofka iska rid baan ku oran karna waxa loo yaqaan marka waxyaalihii noocaas waa modifiable waxaan ka qaban. waxyaalaha non modifiable waxa weeye waa female anyway inantu waxay risk factor ugu jirtaa wax loo yaqaan breast cancer ama cervical cancer ama ovary cancer. marka waa female miyaan ka bedeli karnaa marka ayada may lagama bedeli karay female ka male ka dhigi karnaa may. sidoo kale qof waxa weeye hereditary xanuunkani waxa weeye families ama qoys waxyaalahaas ayuu ka dhaxlaya marka wax kama bedeli karo. qofka old age da'dii haddii uu qofka ay sii kordhayso age wax kama bedeli karna waxyaalaha aan wax inta badan laga qaban karin. okay life expectancy haddayn cimriga life expectancy in early 20th century haddayn life expectancy ama cimriga ayn eegno bilowgii qarniga 20aad maxaad isku celcelisaan cimriga dadka intuu ahaan jira ayaad u malaynaysaa. okay waxa la yiraahdaa cimrigoodu wuxuu ahaan jira dadkaas ku celcelisaan 31 sano 31 years old. berigaasi cimriga dadka life expectancy-gooda wuu gaabnaa ayaa la yiraahdaa qarniga 20aad. qarniga 20aad waxa la yiraahdaa cimriga dadka isku celcelisaan inta da'weyn ku dhibatay inta yar ku dhigatay markii la isku soo celceliyo wuxuu ahaan jira 31 sano. okay life expectancy-ga bal cimriga dadka aan eegno 2010 bal daatada ay hayno waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa 2010 waa 67.2 67.2 bal waa laba jibaar in ka badan. maxaad u malayn kartaa in isbedelkani oo ka qayb qaatay in cimriga dadka ama cimriga dadka inuu soo kordho ama marka iyadoo sidii u wanaagsanaado maxaad u malayn kartaa. waxyaalaha life expectancy-ga dalalka qaar waxa la yiraahdaa wuxuu life expectancy-gooda ka hooseeya waxa loo yaqaan dark red madowgan casaanka madowga ah oo ku jira marka dark red waxa weeye waa dadka cimrigooda uu ka yar yahay isku celcelisaan marka la eego kontonka. marka bal u fiirsa Soomaaliya Somaliland Ethiopia Kenya waxyaalahan oo maxay life expectancy-gooda wuxuu ka yar yahay waa maxay waa konton ayuu ka yar 50 plus kuwa cimrigooda isku celcelisaan marka la eego kontonka uu ka weyn waa maxay waa red oo casaanka marka. okay kuwa loo yaqaan 60ka uu ka badan yahay waa maxay waa dark yellow. kuwa 70ka uu ka sarreeyna waa maxay iyagana waa yellow. 75ka waa maxay waa green ka.
dark green ko maxay 80 inuu ka sii sareeyo marka Japan baa dunida marka dadka ugu cimri dheer meelaha ugu badan ku jirta aan eegno life expectancy marka aniga the whole map will have been dark in red hundreds ago the whole map qariirada oo dhan markaan eegno waxay ahaan jirtay dhammaan dark red casaan madow ah 100 sano ka hor isku mid baa la wada ahaa cimriga dadka 50 sano ka wada hooseeyay okay what is the secret of this dramatic shift waa maxay sirta ka dambaysa isbedelkan xawliga ah haddaba maxaa keenay in uu 31 sano cimriga ahaa uu noqday 67 maxaa haddaba isbedel ka dambeeya waa maxay okay what can we do to ensure the areas in red become green haddaba maxaynu samayn karnaa si aan ku xaqiijino meelaha weli casaanka ah inay green noqdaan adduunka oo dhan cimrigooda iskooda mid u noqdo that everyone qof kasta in the world adduunka enjoys inuu ku raaxaysto the same long life expectancy cimriga dadka oo dhan inuu wada dheeraado haddaba maxay sameynaa maxaynu haddaba inay sameynaa in u baahan maadaama dadkii cimrigoodii dalalka qaar ay kuwana ay fiican yihiin kuwana ay gaaban yihiin maxay sameyn karnaa bal isweydi haddaynu hadda soo joogno waxay isweydiin lahayn wax loo yaqaan inuu ka doodi lahayn okay divination of prevention haddaba bal qeexitaanka ahaynta fahmi divination of prevention haddaba waa maxay prevention kortag maxaa lagu qeexaa waa actions waa ficilo aimed looga aadaf leeyahay marka loogala jeedo at eradicating in la ciribtiro or eliminating in la baabi'iyo or minimizing in la yareeyo the impact of disease marka saameyntu xanuun u leeyahay or disability curyaanimo marka waxaa waa actions ama waa ficilo kaasoo ulajeedka laga leeyahay ay tahay in wixii xanuunka la keenayo la ciribtiro ama la baabi'iyo ama la yareeyo saameynta xanuun uu yeelan karayo ama curyaanimada the concept of prevention is best defined marka fikirka the concept of prevention marka ka hortaga is best defined waxaa sida wanaagsan ama sida fiican lagu qeexaa in the context of levels heerarka xagga inagoo eegana waa maxay context of levels marka waxaan eegana waxa weeye marka waxyaalaan ka hortagan uu ku jiro marka waa maxay levelskan u eegana marka primary secondary tertiary kaasa in lagu qeexa ayaa ku fiican marka prevention heerarka uu ka kooban yahay ama ku guda jiro traditionally called marka asal ahaan waxa loogu yeeri jiray primary secondary iyo tertiary prevention kaana fiican marka in lagu qeexo okay waxaa jira 3 heer ayaa loo qaybiyaa ka hortaga mid waxa la yiraahdaa primary prevention ka hortag koowaad the main objective hadafka ugu of primary prevention ka hortag koowaad waxa weeye promoting of health in caafimaadka bulshada kor loo qaado prevention of exposure in laga hortago qofka inuu xanuunka uu jeermiska uu soo galo prevention of disease in qofka xanuunka laga hortago marka waa 3 B baa la yiraahdaa primary prevention waa 3 waa promoting of health qofka xanuunka waxa weeye dad soo barakacyaal oo kale ah oo xoolihii wixii ka bixin dadkaas oo kale marka waxay u baahanay in biyo la siiyo cunno la siiyo raashin la siiyo waxbarasho marka caafimaadkooda kor loo qaaday min waxa prevention of exposure qofka xanuunka inuu qaadan diidina waxyaalihii kaneecadii waxyaalihii jeermiska u keeni lahaa biyo wasaqda lahaa cunnadii waxyaalihii cuni lahaa ayaan ka ilaalinayna marka min waxa prevention of disease in xanuunka sidiisaba in ka hortagno talaal iyo waxyaalo lamid ayaan isticmaalina okay primary prevention ka hortagga koowaad keeps the disease process from became established marka primary prevention wuxuu inta badan uu ka hortaga ama ilaaliya habkii xanuunka uu ku aas-aasmi lahaaba ayaa la ilaalinaya inuu xanuunka establishment u noqdo became established ayaa la diidayaaba inuu waxaan ka hortagina ama ilaalinayna inuu habkii xanuunka uu ku aas-aasmi lahaa ama ku noqon xanuun ku jir lahaa inagoo ka sameynaya eliminating the cause wixii sababay eliminating waxay marka baabiinayna the cause of disease wax xanuun keenay ama increasing waxa kor u qaadan resistance of the disease qofka difaaciisana kor u qaadana qofka inay talaal siino waxyaalo nafaqo la siino qofka inuu wax cuno inuu wax cabo inuu waxyaalo noocaas oo increasing primary prevention wuxuu ka kooban yahay 3 qodob sida soo sheegnay health promotion prevention of exposure iyo prevention of disease sadexaas health promotion ka consist wuxuu ka kooban of general guud ahaan specific interventions waa ka hortagay aan qaas ahayn that enhance taasoo kor loogu qaaday health caafimaadka and the body's ability iyo awoodda jirka to resist iyadoo uu markaa uu qofka uu iska difaacay xanuun inuu xanuun qofka iska difaaci karo ama adkeysan karo qofkii waxaan sameeynaa caafimaadkiisa iyo awoodiisa difaaca kor u qaadna improvement waxaan kor u qaadeynaa
socio-economic status xaaladda bulsheed ama xaaladda bulsho ee dhaqaala ayaan qofka kor u qaaday markaa status marka xaaladda economic dhaqaale ahaan and social iyo bulsho ahaanba labadaba markaa socio-economic status profession inaan siino adequate food qofka cunno ku filan profession waa gift markaad siin of adequate food cunno ku filan qofka housing guryeyn clothing qofka inaan siino maryo education aqoon examples waa tusaale ka mid ah markaas of health promotion caafimaadka qofka kor loogu qaaday qofku soo barakacay dagaalo oo kale taa dhaco daadad ayaa dhacay waxa loo yaqaan masiibooyin waxyaalo noocaas qofka ku yimid marka qofka inaan jir ahaan iyo caafimaad ahaanba qofka inaan kor u qaadno iyo waxyaalaha u baahnaa asaasiga ahaa nolosha prevention of exposure qofka inuu xanuunka qaado ayaan ka hortagaynaa is the avoidance waxaan qof ka ilaalinayn ama ka hortagaynaa of factors markaa shayaadkii which may cause kaasoo sababi lahaa disease xanuun if an individual haddii qofka shakhsiga is exposed to them haddii uu qofka uu qaado marka factorskii ama waxyaalihii xanuunka qofka u keeni lahaa ayaan ka ilaalinayna ka hortagaynaa example tusaale ahaan can be provision qofka waxaan siin karnaa safe and adequate water biyo nadiif ee ku filan weliba biyaha ku filan qofka waxaa la yidhaha maalintii waxaa qofka ku filan baa la yidhaha 40 ilaa 20 litir oo marka qofka WHO guideline-keeda ay markaa ku xaqiijisay markaan ka eegina xagga marka waxa loo yaqaano environmental health-ga aan eegina qofka biyo ku filan oo nadiif ah proper excrete of disposal qofkii marka bulaacadii wasaqdi waxyaalihi noocaas meel uu iskaga shubi karay waste disposal ay sameyn karna marka ayada am factor control waxyaalihi xanuunka soo qaadayay jeermisyada in laga hortago sida mosquito kaneecada factors waxa uu naqaan waxyaalaha qaado marka xanuunada sida mosquito kaneecada oo kaleeto sida flies ka duqsiga oo kaleeto waxyaalahaas kala midka oo kaleeto inay control ama xakameeyaan prevention of disease marka waxaan ka hortagaynaa wax loo yaqaan xanuun what is the prevention waa hortaga of disease xanuun can develop after the individual has become exposed to the disease and causing factors marka waxaan ka hortagaynaa xanuunkii intuusan qofkii xanuunka jeermiska ay waxyaalo la midka qofkii intuusan qaadin ayaan waxaan siinaynaa wax loo yaqaan talaal ayaan ka hortagaynaa tusaale immunization talaalka kaleete waa is an example of prevention of disease waa mid ka mid ah ka hortagada marka tusaale ahaan waxyaalaha waa ka hortagaya xanuunada immunization acts after exposure has been taken place immunization ama talaalka wuxuu shaqeeyaa kadib markii xanuunka keenay markuu qofka jirkiisa soo gala immunization talaalka does not prevent qofka kama hortagaya an infectious organism germska xanuunada faafo ama la isu gudbiyo ama la qaado keenay from invading the immunized host inuu soo galo qofkii talaalna but does prevent like wuxuu ka hortagaya it from establishing an infection xanuun asaas eg talaalka albaab maaha qofka xanuunka inuu soo gala kaama ilaalinayo germska uu soo gali karaya laakiin markuu xanuunka uu soo galo germska ayuu talaalka shaqeynaya markaasuu aqoonsanaya qofkan soo gala wuxuu oranaya waxaan soo galay waa maxay kadib markaasuu ka jawaab celinaya yacni wixii waa qof lagu sii sheegay qofka fasalka soo galaya nooca markuu soo galay kadib qabo marka qofku markuu soo galo yacni albaab iska ma xiranaysid yacni qofku markuu soo galo ma oranaysaa sawirkiisa wixiisa lagu dhiibay adiga soo kal oo kaleeta ay la mid marka ha u qaadan talaal haddii lagu talaalo xanuunka inuu jeermis soo galay jeermiska jirkaagu soo galaya laakiin xanuunka inuu aasaasmo ama uu dhaco unba talaal ka hortaga if we take measles haddii aan qaadano vaccine-ka ama talaalka jadeecada it will not prevent the virus from entering the body inagama hortagayo viruska keeno marka ayada jeermiskan ama viruskan keenayo marka xanuunka inuu jirka soo galo inagama hortagayo marka inagama celinayo but prevents wuxuu naga hortagaya development of infection or disease in xanuun aan qaadno marxaladda labaad secondary prevention waa ka hortagga labaad the objective of secondary prevention hadafka laga leeyahay ka hortagga labaad waxa weeye is to stop in la joojiyo or slow ama in la yareeyo the progression of disease xanuunka koritaankiisa markaa sii socodkiisa horumarka uu xanuunka sameynayay so as to prevent si looga hortago or limit mise loo xadido permanent damage dhaawaca joogtada qofka u keenaya inaan ka hortagno ama aan yareyno markaa aan xadidno secondary prevention can be achieved heerka labaad ama ka hortagga labaad waxaan ku guuleysan karnaa ama ku gaari karnaa through detecting inagoo helayna markaa qabanayno people dadka who already have the disease dadka xanuunka qabay ama uu ku dhacay as early as possible markaa sida ugu horeysa ama ugu macquulsan and treat them daweynayna markaa
it is carried out waxaan fulin karnaa before the person is permanently damaged intuu qofka dhaawac joogta uu soo gaarsiino marka in short waxaa la yidhaha earlier diagnose and earlier treatment and earlier treatment goor horena qofka xanuunkii laga helo la daweeyo tusaale ahaan prevention of blindness from trachoma qofkii inayn ka hortagno inay indhalaan u geysato markaa trachomada markaa iyada nooca stageka nooca doon haato marka complete ha haato angle ha haato waxay doonto haato marka trachomada goor hore ogaano si intay qofka indhalaan ay ku sababaan in ka daweyno early detection and treatment in goor hore ogaano oon daweyno breast cancer marka kansarka ku dhaco naasaha marka to prevent si uga hortagi karno it is progression koritaanka ama fiditaanku sameynay to invasive stage inuu noqdo marxalad qofkii uu ku fido marka which is very severe form marxaladaas aad marka halis ama dilaa ah ama khatar ah okay ugu dambeyntii waa tertiary prevention waa ka hortagga saddexaad is targeted towards the people waxaan ku bartilmaamaan dadka with permanent damage dhaawaca joogtada leh or disability curyaanimada tertiary prevention is needed inta badan tertiary prevention waxaa uga baahan in some disease xanuunada qaar because waxaa yela permanent waxaa loo yaqaana primary and secondary health hortagga koowaad iyo kii labaad ayaan ku fail garowno marka half failure in ku guuldareysan and others because primary and secondary prevention are not effective qaarkood way sameeyeen laakiin si waxtar fiican uma yeelan it has two objectives laba hadaf baa laga leeyahay hortagga saddexaad ee loo yaqaan tertiary waa treatment to prevent further disability in qofka daweyno si aan uga hortagno marxalad inuu qofka curyaannimo dheeraad ku dhacdo ama dhimasho ayaan ka ilaalinayna waa kow talabaad waxa to limit inaan yareyno physical jir ahaan dhaawaca qofka soo gaaray psychological iyo nafsad ahaanba and social iyo bulsho ahaan iyo financial dhaqaale ahaan impact of disability markaas saameynta ay ku yeelanayso curyaannimada ku yeelan karto jir ahaan iyo markaas iyada waxa loo yaqaano markaa nafsad ahaan qofka marka psychological aan leena qofka nafsiyan wuxuu dareemi karaa waxyaalo fara badan waa laga fiican shalay lagu hadlahayd cunto waxyaalo noocaas bulshadii qofku iska dhex saaraya waxa weeye waxa ma qabsan karo dhaqaalana qofka ma shaqaysan karo thereby improving sida darada waxaan kor u qaadan karnaa the quality of life tayada qofka bal noloshiisa inaan hagaajin karno this can be done tan waxaynu ku samayn karnaa tan waxaynu ku gaari karnaa ama ku samayn karnaa through rehabilitation in qofka naga baxnaano u samayn karno markaa which is retraining kuwaasoo dib u tababarayno the remaining functions qaybihii qofka u soo haray shaqooyinkii inaan kor u qaadno for maximal effectiveness marka iyada inagoo heerka ugu wanaagsan u gaarsiinayna markaa qofkii haddii inaan birta u dhiibno kale qofka gaari inaan u gaari curyaanimo inaan siino waxyaalo noocaas oo kale when a person becomes blindness qofka markuu indhalaan noqdo due to vitamin A deficiency tusaalaan vitamin A oo kaleeto night blindness buu qofka habeenaysa wax la yiraahdo kaleeto qofka qaada tertiary prevention rehabilitation qofka kan help wuxuu ka caawin karaa blind or partly blind person qofkii markaa indhalaanta ama qayb ka mid ah indhalaanta learn to do gainful work shaqooyin uu qofka qabsan kara maalinta kale shaqo la siinaya mid uu ku heli karay markaa wax ku tabcan karay and economically self supporting qofka taageeri karay yani qofka indhalaanta kale habeenaysa qofka maalin shaqo maalin ah ayaa la siin karaa ugu dambeyntii individual assignment qofka assignment waxa على شخصي بها قفك لو جسد جوابه next class intaan la gaarin think waxa ka fikirtaa two examples of each of marka mid kasta laba tusaale ka soo bixi primary prevention laba tusaale ka soo bixi secondary prevention laba tusaale ka soo bixi tertiary prevention laba tusaale ka soo bixi insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta 10 ku guda jiray marka ku kulmi doono aad ayaan salaamay 10 la iska akhriyo chapterka markuu dhamaado imtixaanka midtermka ayaynu geli doonaa markaa. Assalaamu calaykum.